waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Kismaayo Maxamed Cabdi Buule Sugow wuxuuna uga hadlayay shirkiisa jaraa'ida xaaladda ammaan ee magaalada Kismaayo. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee tababarada ugu soconayay duleedka magaalada Kismaayo in haatan ay ka qayb qaadanayaan amniga guud ee magaalada Kismaayo xilli tababaradu u soo gabagaboobay ciidamada. taliyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri qodobka maanta aan weydiisay oo xagga amniga iyo markaan ka hadalna xaaladaha amniga ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay ciidamada howlgallada ay sameeyeen waxaa la socotay isbuucii ugu dambeeyay maamulka Jubbaland in howlgallo ballaaran uu bilaabay in ciidamadii xoogoodii banaanka loo saaray in tababaro iyo loo qorsheeyay in ciidamada aad u tababaran oo muddo bil ah ku soo jiray tababar adag ay ka qayb qaateen saraakiisha maamulka Jubbaland iyo kuwa amisom oo gacanta nasiinaya tababarka ka qayb qaateen in magaalada la soo geliyay ciidamadaas howlgallo aad u ballaaran 4-5 xafadood magaalada ay ka bilaabatay howlgalkaas oo ku dhamaaday si guul ah xaaladii ugu dambeeyay amnigana aad u fiican yahay sida aad socotaan waxa way howlaha wada socotaan magaalada xaaladda aad bay u degan tahay waxay noqotay magaalo maamul iyo nidaam ka dhashay waxaa kaloo jiri jiray in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hoose uu jireen golaha wasiiro lagu dhawaaqay golahaas oo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ay sameysay qorshe aad u muhiimsan qorshahaas oo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan lagu howlgeliyay marka xaaladda magaalada aad bay u fiican tahay ciidamada horta 24 saac way howl galaan way socdaan qaasatan ciidamada saldhigga dhexe ku sugan ayaga saraakiishooda ayagoo saliskooda dhexe booliska uu toos ugu xiran bay howlgalkooda habeenii maalin wadaan waxaa la soo qabdad aad u fara badan dhi'anay horta saacada waxaa jira dadku soo socon karin digniina ka dad qof 4 saac wixii ka dambeeyay qofkii la arkay waa dambiile waxaan u aqoonsanay al-shabaab inuu yahay waxaan leenahay cid walba 4 saac waqti bay haysataa ha shaqaysata ha kala hooyata qofkii marka meel xumo taagan oo aan qaad baan cunayay ani sheeka taagnay waxa waa dhamaatay ciidamada amar bay u qabaan 4 saac wixii ka bilowday cid rondada ay qabata waxaan u aqoonsanay al-shabaab inuu yahay waday falal si kastaba haatee ciidamada ammaanka ee maamulka Jubba ayaa ku hoolan xaqiijinta ammaanka guud ee magaalada Kismaayo. Cabdiqadar Imaan Dhaqane TV-ga caalamiga ee Home Cable magaalada Kismaayo.